السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحكو برنينا coronary arteries and sinuses oo xididada waaweyn ee wadnaha dhiiga geeya iyo venuska oo dhiiga oo deoxygenated ka kasoo qaada muruqyada ama myocytes. So marka cashirkan waxaa ku jiro live oo human specimen qofka aan rabin please yuusan daawan sababtoo qof bini aadam wadnihiisa ayaa ku jira qof daayar ama qofka aan rabin. marka hadda usii gudubno coronary arteries waa xidido aad muhiim u oo waxyaalahaas oo keena waxa loo yaqaan haday xirmaan heart attack oo dadka oo caadi u yaqaanaan oo non medical ka dadka medical kan ay u yaqaanaan acute coronary syndrome oo isku jira unstable angina, ST segment elevated myocardial infarction ama non ST segment elevation myocardial infarction. So marka waxa keena waxay tahay in ay xirmaan xididada coronary arteries-ka taasoo keenta in uu xirmo muruqii ama tissue-ga qaybtii oo xididkaas uu geynayay oxygen-ta iyo nutrients-ka oo loogu talagalay uuna kasoo qaadi jiray wixii carbon dioxide iyo wasakhdii uu soo saaray. So markaasaan arkeen waxyaalaha badanaa keena waxay tahay cholesterol ama muxuu ahaa fat oo aan dhahe clot kasoo baxday meel kale oo jirka ama muxuu ahaa dhaawac soo gaaray xididka ayaa waxay keentaa in oo meesha uu ku dhasho waxa loo yaqaano atherosclerotic plaque. Atherosclerotic plaque oo iskugu jira wax oo fat immune cells macna white blood cells kaasoo sometimes marka oo dhaawacaas oo soo gaaray oo burst sameyn karo oo qarxi karo oo xididkan uu xiraayo waxa loo yaqaan clot ama xinjir. haddii xinjirta ay xiranto oo meeshan oo kale kasoo qaad waxay keenaysaa xididkan oo kan wuxuu eekayaa left anterior coronary artery in uu dhinto meeshii tissue-ga oo dhiigaas uu geenayo taasoo keenaysa xanuunka zaa'idka oo qofka uu ku dhaco muxuu ahaa acute coronary syndrome. waxaa arkaysaa qof heart attack uu soo booday oo leh waxa ay qabtay xanuun aan weligeyga arkin, qofkii labalab uu qabanayo dhidid uu qabanayo oo xanuunkiisa oo u gudbayo ilaa muxuu ahaa qoorta gacanta xanuun zaa'id uu qabanayo. that's why marka waxaa keenaysa dhimasho uu dhimanayo qayb ka mid tissue-ga oo wadnaha. So marka xididada coronary arteries waxay kasoo baxaan muxuu ahaa aorta left iyo right. So marka kuwa kasoo baxa right-ka waxaa kasoo baxa waxa loo yaqaano right coronary artery, left-gan waxaa kasoo baxa left coronary artery. left coronary artery-gaas ayaa wuxuu u kala qaybsamaa laba branch oo aad u waaweyn. midkaana loo yaqaano LAD macnaa left anterior descending LAD ayaa loo yaqaanaa waana kan badanaa xirma oo myocardial infarction oo dadka ku dhaca keena. LAD-kan oo qaybtan hore oo anterior-ka oo muxuu ahaa oo muruqa oo wadnaha innervation siiya ama supply geeya ayaa badanaa xirma. kan kale waxa waaye circumflex oo gadaal u wareegta oo asagana ku wareejiya dhiig. So marka mid walba oo weyn waxaa kasoo baxa kuwa kale oo yar yar sida kan oo circumflex oo kale waxaa kasoo baxa mid loo yaqaan left marginal artery. sidoo kale LAD ama left anterior descending asana waxaa kasoo baxa branchial kale oo arkayna diagonal branch. muxuu ahaa right coronary artery asana si lamid waxaa kasoo baxa xididada kale oo isii qaybinaya sida kan oo right marginal artery iyo wixii lamid so marka haddaan sii fiirino kan oo muxuu ahaa meeshan waxaa waaye adoo gadaalka fiirinaya oo kale wadnaha gadaal haddaa kasoo fiirisid kan waxaa waaye wuxuu kasoo baxay left coronary artery mid hore uu sii aaday kan gadaaluu soo aaday wuxuu soo marayaa meeshan wuxuu dhiibayaa mid kale oo marginal artery posterior aan dhahe macnaa posterior interventricular artery ayaa loo yaqaanaa oo groove-ka dhex maro. sawir hadda noo imaan doono ayaan si clear u arki doonaa. kan waa iska diagram oo wax si fiican aan laga arkaynin. si lamid muxuu ahaa xididada oo dhiiga kasoo qaada ayagana waxay soo raacaan groove-yaalkan oo wadnaha uu leeyahay oo loo yaqaano sulcus. hasan sawir noo imaan doono ayaan ku arki doonaa si clearly ayagana marka waa isku dardarsamayaan ayagoo akhiiran noqonaya waxa loo yaqaano coronary sinus oo vein-ka ugu weyn wadnaha oo qaybta oo wadnaha oo posterior macna gadaal ka xigo wuxuu maraa coronary sulcus. groove-kan oo macna coronary sulcus loo yaqaan oo kala qeybiya ventricle-ki iyo atria ayuu dhex maraa kaasoo akhiiran ku darsama right ventricle meeshan oo vena cava ugu darsama agtiisa. inferior vena cava iyo asaga meel isku dhow ay ugu darsamaan si macnaha oo right ventricle-ku uu aado oo lungs-ka loogu diro. So marka waxaan soo sheegnay ayaan hadda meeshan si oo dhaqso ku dul mareynaa waa laba artery left iyo right oo ka soo baxa aorta waxay isku dul wareejiyaan
wadnaha oo dhan ayagoo dulmara coronary sulcus. Interventricular groove macnaa meesha oo depressionka oo gadaal oo wadnaha hore iyo gadaal ilaa apex ay tagaan. waxaa kaloo jiro waxa loo yaqaano left dominant iyo right dominant. dadka oo adduunyada jooga dadka qaar muxuu ahaa xididka oo left ayaan dhahay right atriumka ama sinus nodeka xididka siiya sometimes wuxuu kasoo baxaa dhanka oo left coronary artery, sometimes wuxuu kasoo baxaa right coronary artery. macnaha variation waaye sida bini aadamka ah. haddii aad baranaysid muxuu ahaa anatomy waxaa arkaysaa in oo variation badan uu jiro. macnaha haddii textbook akhrinaysid waxaa umaleynaysaa marka lagu tilmaamayo dhiigga sida uu yahay, wadnaha sida uu yahay, xididka meesha uu maro, laakiin waa mid kamid ah oo kaliya dadka biniaadamka ah. laba qof biniaadam isku mid ma jirto. xididada kuwa qaar dhinac bidix ayay maraan, kuwa qaar midig ayay maraan, inkastoo sida general macnaa 80% ama 70% oo meel lagu arko, laakiin variation badan ayaa jiro oo dadka ay kala duwan yihiin. so ha umaleynin in haddii lagu dhaho muxuu ahaa right atrium ama sinus nodeka waxaa siiya right coronary artery waa the dominant, laakiin dadka qaar oo waxaa jiro left dominant laakiin majority dadka waa right dominant, kaasoo laga wado in sinus nodeka oo ku yaala right atriumka uu siiyo muxuu ahaa right coronary artery. so marka sidoo kale cardiac veins hadda aan soo sheegaynay waxay ku kulmaan coronary sinus oo ahaa xididkii weynaa oo hadda waxay kor idin soo sheegayay. right coronary artery wuxuu kasoo baxaa right coronary aortic sinus asagoo sii mara coronary sulcus, kadib gadaal ayuu tagaa ilaa meesha diaphragmatic surface oo wadnaha ayuu tagaa. branchial badan ayuu siiyaa. sinoatrial nodeka waxaa siiya right coronary artery waana kan dominantiga ah oo dadka badanaa ay leeyihiin. dadka qaar oo waxaa jiro oo left dominant ah, laakiin sida caadiga ah right dominant ayaa badan dadka oo badanaa haddii discussion lagu sameeyo lagu arkaa. wuxuu kaloo soo dhiibaa right marginal branch iyo posterior interventricular branch. hadda arki doono waxaa kadib sida noo imaan doono. wuxuu kaloo siiyaa macnaa dhiig right atrium, right ventricle, sinoatrial node, AV node, macnaa atrioventricular node, macnaa septumka oo muxuu ahaa u dhexeeya ventricleka iyo labada ventricle iyo ventricle septumka. kan waxa waa interatrial macnaa septumka oo u dhexeeya labada atria. kan waxa waaye septumka u dhexeeya labada ventricle ilaa 1/3 oo kale ayuu siiyaa. iyo qeyb ka mid ah left ventricle. left coronary artery asana wuxuu kasoo baxaa left aortic sinus, wuxuu maraa pulmonary artery-ga iyo left auricalka dhexdiisa, kadib wuxuu tagaa coronary sulcus isagoo isku sii kala qeybiya interventricular iyo circumflex. interventricular waxaa waa kii hadda oo left ascending oo aan idin sheegayo oo badanaa xirma. circumflexna waxaa kii gadaal aadayay. marka laadka ama left anterior descending wuxuu aadaa ilaa apexka asagoo dhexmara meeshii groovekii oo hadda idin sheegayay. mar kalena hadda waa arki doonaa sawir noo imaan doono. circumflex asana gadaal ayuu aadaa asagoo diaphragmka siiya. left marginal artery ayuu dhiibaa ilaa laakiin grooveka ma tago. muxuu ahaa left coronary artery-ga wuxuu supply geeyaa macnaa dhiig geeyaa left artery, left ventricle iyo septumka oo labada oo interventricular udhexeeya. marka variation badan ayaa jira si had waxyar kor idin sheegay oo dadka qaar oo right dominant ay yihiin, dadka qaar oo left dominant ay yihiin. so markaasaan arkayna kan waxaa waaye right coronary artery, kan waxaa waaye left coronary artery, kan waxaa waaye circumflex, kan waxaa waaye lad left ascending left anterior descending macnaa kan badanaa xirma waaye kan. so marka waxaa arkaysaa kan inuu kasoo baxayo left sinus, kan inuu kasoo baxayo right sinus. si lamid ah meeshan waxaan arkaynaa asana sawir kale oo reflection kale lagu sameeyey. right coronary artery, sinoatrial node marka waxaan arkaynaa right coronary artery inuu dhiibo. hadda waxaa idin sheegayay dadka badankood inay yihiin right dominant. kaas waxaa laga wadaa sinoatrial nodeka oo ku yaala right atriumka waxaa siiya ama supply geeya haddii macnaa oo right dominant qofka uu yahay oo majority dadka ah right coronary artery. laakiin dadka qaar oo waxaa jiro sinoatrial nodeka oo uu dhiigga supply siiyo left coronary artery. so marka variation waaye oo qofna inuu kan ka imaado qofna kan ka imaado. so marka waa muxuu ahaa hal nooc ma jira macnaa tan ogaanays waxay tahay hal nooc inuusan jirin oo dadka ay kala duwan yihiin. laba qof isku mid ah ma jirto, midda meel ayuu kasoo baxaa. kan waa aorta, kan waa superior vena cava, kan waa pulmonary trunk. haddaan sii socno
kan waxa waaye waxaan idin sheegay in right coronary artery markuu soo baxo branchyaal badan uu dhiibo oo magaca ay leeyihiin waa right marginal branch si lamid ah meeshan waxa waaye muxuu ahaa right coronary artery waa markii gadaal uu soo wareegto posterior interventricular branch soo saarkays marka groovekan ayuu soo raacaa saarkaysid groovekan gadaal oo wadnaha waa meeshan intan waxa waaye coronary sinus oo aan arkayno venuska badan oo kusoo darsamayo oo meeshan ka imaanayo venuska badan waxaa arkaysaa in uu madow u yahay artery veins waxaa lagu kala fahmayaa maxnaa venuska xogaa waxa oo dark oo kala waaye oo isla markii aad arki kartid soo waxa dhan vein waaye kuwan ayaa artery ah marka right coronary artery oo posterior maxnaa oo interventricular branch interventricular waxaa laga wadaa groovekan depressionka oo labada ventricle u dhexeeya ayuu dhex maraa si lamid ah marka kan waxa waaye muxuu ahaa left coronary artery kan waxa waaye lad ama left anterior descending kan badanaa xirma oo anterior ama qaybta hore ee wadnaha oo supply geeya kan waxa waaye circumflex branch oo waxaan kor aan soo fiirinay excuse me kan waxa waaye marka hadii oo gadaal aad ka fiirisid muxuu ahaa left coronary artery kan circumflex branch kan hor aadayo iyo left marginal artery oo uu ka soo baxay circumflex branch soo marka waana soo aragnay venuskii hadda oo ayagana meesha ay drainage ku sameynayeen oo ah coronary sinus ay isku imaadaan soo marka waxaa loo yaqaanaa marka venusyaalkaas oo wadnaha kasoo qaada dhiiga middle small posterior and the great cardiac vein kulligoodna waxay ku darsamaan coronary sinus oo dhex yaala coronary sulcus taasoo akhiiran ku dhex darsama right atrium waxay ka yimaadaan apexka anterior sulcus ayagoo marka isku dardarsama akhiiran right atrium ku darsama iyo si lamid ah middlekan wuxuu ku imaadaa qaybta gadaal maxnaa apexka hore wadnaha hoos ayuu kasoo maraa asagoo soo mara posterior interventricular asagoo ku darsama coronary sinus soo marka waa kan waxaan idin sheegayay gadaal ayuu kasoo baxaa kan waxaa waye coronary sinus oo ku darsamaya muxuu ahaa isheg right atrium great cardiac vein oo hore ka imaanaya macnaa qaybta anteriorka ah kan waxa waaye posterior vein iyo si lamid ah macnaha wax oo ma ahan oo difficult ah hadii stop aad dhahdid oo kulli oo timekaaga oo aad ku fiirin kartid muhiimaddu waxay tahay inaad ogaatid xididada venuska oo wadnaha ka imaado kulligood waxay ku darsamaan coronary sinuskan asana wuxuu drainage akhiiran ku sameynayaa right atrium muhiimadda ugu weyn ayaa taasa inaad fahamtid waana kan taayada hore idin soo sheegay oo muxuu ahaa great cardiac vein oo ku darsamaya coronary sulcus great cardiac vein intuu hadda soo maraya haddii aan soo raacno macnaha oo wadnahii aan sii wareejino inta ayuu imaanaa asagoo ku darsamaya marka muxuu ahaa right atrium oo inta ah kuwaan dhan waxa waaye marka branchyaasha oo muxuu ahaa veins oo wadnaha ka yimid coronary sinus ay ku darsamaan coronary sinuskan wuxuu drainage ku sameeyaa right atrium